السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha meel walba aad joogtiin waan islaamayaa waa walaalkiin shakuur iyo video cusub videoga maantay wuxuu ku saabsan yahay exchange-gani la yiraahdo get.io ayaantan si aan caadi ahayn waxaad u isticmaalaya usoo degsanaya iska qoraayo iska registreynayo walaalaha Soomaaliya joogo I like it sababtoo ah baasaboorka Soomaaliya u aqbalaya usii dheer exchange-gan get.io wuxuu ku fiican yahay kooniyo badan sida Binance baa ka heli kartaa marka isdiiwaangelintiisa security-giisa iyo sidii trade lagu sameeyo baan isla fiirinaynaa insha Allah inta ka hor aan gelin videoga iyo mawduuceena maantay get.io waxaan rabaa inaan soo xasuusiyo walaalaha Somfintech inay maxaa la dhahaa ii sheeg support garayaan adiga haddaada ka tirsanayn Somfintech oo maanta kugu horeyso Somfintech waxay active ku tahay Clubhouse, Telegram, YouTube marka nagu soo biir channelka subscribe and like saar videoga walaalahaadana la share garay waa mahadsantahay mar dhow 2,000 baan garaacaynaa waana isla dabaaldegaynaa insha Allah waa mahadsantihiin one love okay haddaan ku noqdo get.io sida caadada ahayd ee exchange-yada ay sameeyaan KYC baa jiro in adiga qofka isqoraa isdiiwaangelina inaa adiga tahay markaa kasoo gudubtid sign up-ka password-ka telefoonka maxaa la dhahay ii sheeg email-ka kabacdi waxaa lagaaga baahan yahay baasaboorkaaga iyo adresskaaga inaad verification ku samaysid walilahi alxamd Soomaaliya haddartaan dad badan baa jiro walaalo Soomaali isticmaalo wuuna qaataa adresyada haddaa qortid Maka al-Mukarrama road wax walba haddaa qortid wuu qaadanaya insha Allah iyo baasaboorkaaga so sidaa darteed waa exchange aqbalay Soomaalida anagana soo dhaweynaynaa wixiina aqbala okay markii aad samaysid login aad dhahdid wuxuu ku weydiinayaa inaad samaysid security-ga oo Google Authenticator-ka meesha ugu muhiimsan Google Authenticator-ka waa numberkan asxaabteeda mar walba u sheegaa markaad samaynaysid Google Authenticator-ka uu ku dhahayo xir oo aad soo degsatid Google Authenticator-ka aad soo degsatid waxaa u baahan tahay numberkan uu ku siinayo markaad step to step aad maraysid ku xiritaanka Google Authenticator-ka iyo get.io application numberkan uu ku siinayo numberkan meel fiican ku qoro numberkan meel fiican inta ku qoratid meel fiican inaad dhigatid waaye sababta telefoonka hadduu ka halaabo telefoonka hadduu ka dhumo oo mar kale rabtid inaad soo degsatid exchange-gani la yiraahdo get.io mise any exchange wuxuu kaa baahan yahay numberkan waa daruuri insha Allah markaa meel ku qoro marka waxaan dhan aad ka gudubtid waxaan aadaynaa application aad u qurux badan waaye design ahaan wuxuu badanaa similar u yahay Binance iyo maxaa la dhahaa KuCoin bay isku egyihiin inkastoo aan arko more information ay ayaka dhanka stocka iyo information iyo newsyada iyo waxaas ay ku soo dareen hoostan hadda aragtid waxa ku qoran news marka hoostan waa market meeshan waa exchange-ga waa meesha trade-ka laga sameeyay meeshan waa future-ka we don't need future news-ka hadda ni sheegay qof walba waxa u malaysaa sida Facebook camal news-ka iyo wallet-ka marka haddaan ku bilaabno marketka sida aragtiin waxaad arkayseen a lot of options oo aad isticmaali kartid sida copy trade B2B trade get.io finance analyze bal analyze-kan aan taabano analyze-kan wuxuu ku tusayaa information badan
liquidation kana ugu qatarsan bal aan liquidation ka fiirino liquidation ka waa xaraaj waxa waaye waxa yaa laga xaraajay haddii aad dad baa deen intay qaataan deentii waqtigeedii expire markuu noqdo ay soo celin waayeen marka assetkoodii la xaraajaya marka hadda halkii saacadda ugu dambeeyey waxaa la xaraajay mise liquidation lagu sameeyey 3.5 milyan 24 saacadood hadda lasoo dhaafana liquidation waxaa lagu sameeyey 198.5 milyan marka baashaasi mar walba waa maqashiin taasi waxa waaye assetka iga haysatay mise kooniyada haysatay laga xaraajaya haddii aad deenta waqtigeedii aad kusoo bixi weyso marka taas baa keenta dadka deenta qaato bay u daran tahay anaka maaha waxayna waa cash to cash okay more information inta ay ku qoran tahay waxyaalahan badan mid haddii waqti aa u haysid aad fiirisid waxyaalaha ay ku saabsan yihiin hadda more haddaan dhahno more information baa meeshan ku qoran aad u jeedaa xataa live tv inuu leeyahay uma malaynaynin bal live tv-ga dhitus okay maanta igu horeyso live tv-ga wuxuu leeyahay uu soo socdaa soon okay ka noqo a lot of information chat room uu leeyahay news social trading a lot of informations okay taa optionkaas haddaan kasoo tagno meeshan USDT ay ku qoran tahay gadashada si B2B ma u rabta u kuleeyahay mise buy hadda B2B dhaho wuxuu ileeyahay waxaad gelisaa amountkii and after that markaas saas baa ku soconaysaa haddaan dhaho credit card haddaan dhaho waxay tusayaa kambaniyadan hoosta ku xusan baa waxa waaye waa third ayakaa iska diiwaangelinaysaa kabacdi waxaa isticmaalaysaa fiya ayaka credit cardka kabacdi markaa waxa waaye waxaad ku xiraysaa mise bank transfer haddaa dhahdid waxaa usoo diraysaa lacagta si toos maxaa la dhahaa ii sheeg from your bank okay taas waa ka gudubnay meeshaan haddaan imaano top games wuxuu ku tusayaa kooniyadii saacadihii ugu dambeeyay lacagta fiican sameeyey sport waa meesha aan badanaa aan wax ka gadano ama long term ha ahaato ama maxaa la dhahaa short term future ma loo baahno ETF ayadana haddaad taabatid is another level laakiin muhiimadda waa sportkani haddaa fahamtid kaaga badan okay exchange-ga hadday waan dhahnay waa meesha trade-ka lagu sameeyo iyo wallet-kii oo sportka meesha account sportka haddaad taabatid wuxuu ku tusayaa akoonyadaadii oo maxaa la dhahaa ii sheeg oo taxan inta coin aad haysid lacagta kor buu kuu soo qorayaa inta total lacag aad ku jirto wallet-ka wuxuu ku tusayaa profitkii aad samaysay maantay inta ay la eg tahay marka maanta waa maalin cusub si ay u jeediin waa 8 saac habeenimo marka waxay tusayaa hadda 2 saac oo hadda lasoo dhaafay in almost $2 ama 8.89% aan sameeyey profit markaas waa saacado yaryar kolley ilaa hadhow bal aan fiirino intay noqoto insha allah okay haddaan ku noqono marketka haddaan rabo inaan wax iibsado waa iibsiga waa meesha ugu muhiimsan bal waxaan isla fiirino coinkani kadayna waa coin soomaalida caan dhexdooda ka ah waxaan leeyahay trade markaan dhaho kadayna waxa waaye sicirkiisa hadda wuxuu marayaa 6.42 marka aniga wuxuu i tusayaa meeshaan limit
marka limitka ama meeshaan ka dooran karaa cagaarka nambarada hadda aragto isbedbedelaya ama waxaan qori karaa nambarka aan jeclahay aan rabo inaan ku gato tusaale waxaa leeyahay telefoonkan waa $100 marka waxaan leeyahay no telefoonkan waxaan ku rabaa $70 ma fahamtay ninka gadaayo hadduu maxaa la dhahaa baahi u qabo kaashka markaa 70ka uu siinaya anigana waa sugi karaa inta baahidiisa uu dhaho haye qaado waxaa laga yaabaa xataa jiro inta usoo galo usoo noqdo dhaho maxaa la dhahaa 70ka keen qaado telefoonka markaa saas darteed hadda waxaan leeyahay $6.41 waaye kuma rabi $6.41 waxaan ku rabaa markuu soo gaaro $5.60 mise any number aan isleeyahay anigu wuu soo aadaa laakiin badanaa waxaa fiican chartiga inaad la socotid marka waxaad arkaysaa support level-yada aad numberkaad markaad ku qiyaas qaadanaysid tusaale meeshaan labadan calaamad haddaad taawatid wuxuu ku tusayaa chartiga haddaad fiirisid waa saacad waa maalin day haddaad dhahdid wuu ku tusayaa marka chartiga hoos haddaa aragtid meeshaan waa supportkii haddata $4.40 waa supportiga ugu sokeeyo ama kan haddaa fiirino wuxuuna tusayaa supportka ugu sokeeyo inuu yahay 5 tusaale 5.10 ama 4.40 okay marka inta waxaan ku qorayaa markaan soo arkay chartiga oo supportiga soo arkay aan isleeyahay meeshaas uu imaan doonaa marka waxaan leeyahay 4.40 markuu imaado hadduu suuqa soo noqonayo meeshaasaan ku gadanayaa lacagta aan rabo waxaan leeyahay waxaa ii gataa 400 oo maxaa la dhahaa ii sheeg oo kadaana waa tusaale ama 400 ama magaciisii 400 oo kadaana ii gad baan leeyahay maya 400 oo kadaana wuxuu ii tusayaa wuxuu ii leeyahay waxaa laga rabaa 1760 oo USDT hadday ugu jirto waxaa leeyahay buy markaan buy dhaho waxaa waaye orderka meeshaan u imaanayaa marka waxaan sugayaa ilaa uu ka imaado orderkii aan dalbaday oo 4.4 ama haddaan soo dhaweeyo aan dhaho waxaa laga yaabaa baalkan inuu imaanin waxaan leeyahay 5.9 markuu imaado iiga laakiin waxaa mar walbo markii lacagta aan ku daro waxaa badanayo lacagta aniga laga rabo waa aragtaan hadda waxay isku bedeshay lacagtii 1700 waxay isku bedeshay 2360 marka buy baan leeyahay lacagtaas waa inay igu jirtaa buy markaan dhaho orderka meeshaan uu soo dhigaya waqti walbana waa iska kansali karaa hadduuba imaanin maxaa la dhahaa lacagta aan dalbaday maxaa la dhahaa levelkii aan ka dalbaday aan ka sugayay marka taas waa buyga selkana waa isla meeshii waxa daarba inaan sel gareeyo waxaan leeyahay iga meeqa 400 aan haystay waxaan leeyahay iga sel garee sicirka meesha hadda uu marayo aan leeyahay iga sel garee ama waxaan leeyahay iga sel garee markuu imaado ama hoos hadduu ila soo aado oo 5.80 ila soo aado iga sel garee saas marka hoos hadduu kula soo aado uu kaa sel gareynaya taasna waa taas okay marka hadda maxaa noo dhiman insha Allah waxaan intuu videoga intuu naga waqti badan naga qaadan lahaa waxaan aadaynaa meeshaani walletka markaan aadno meesha waxaa ku qoran deposit iyo withdraw depositkan fiirinaya hadda waxaan rabaa inaan lacag soo deposit gareeyo USDT waxaan rabaa in asxaabta xamar joogta inay ii soo diraan USDT
waan wacaya avc da ayaan lacagta ugu diraya marka waxaan leeyahay tran ahaan copy aan leeyahay waxaan copy gareynayaa addresskan waxaan siinayaa telefoonka ugu diraya whatsappka mise anywhere waxaan leeyahay iisoo dira 200 300 mise 100 oo USDT kabacdi markay u gaarto addresskii iyo lacagta marka u diro waa iisoo dirayaan waxay igu soo dhacaysaa walletkayga ama Binance-ka haddaan rabo Binance-kayga meesha withdraw aan aadayaa Binance-ka markaa dhaho USDT withdraw waxaan gelinayaa addresskan aan gelinayaa video badan baa jiro oo ku jira channelka oo qaabka wax la iskugu diro from exchange to exchange from exchange to wallet waxay ku jiraan channelka mar hore aan ka hadlay taas marabi hadda tan waqti badan inaan ku qaadano marka insha Allah channelka ka fiiri channelkana support garee like iyo share-ka ugu deeq insha Allah channelka okay maxaa la dhahaa waa newskii sidaan hadday sheegnay bal ninkani kor meeshani calaamadda ninka ay ku sawiran tahay haddaan taabto waxa ii soo baxay information ku saabsan about my maxaa la dhahaa account-kayga oo meesha ugu muhiimsanna waxa waaye security centerka waxaa fiican mar walbo inaad strong ka dhigtid oo aad maxaa la dhahaa lagaa soo marin meeshan marka telefoonka iyo Google hadda ayaan ka hadlaynay Google Authenticator-ka iyo emailka waxaasoo dhan waxaa ku sameynaysaa inaad ku samaysid provide isku day insha Allah marka waxaan u malaynayaa inaan wax walba ka soo hadalnay waxaan rajeynayaa inaad fahamtaan oo aad ka shaqaysataan haddii dib nagu dhaco oo rabtiin inaad la xiriirtiin maxaa la dhahaa ii sheeg getayo supportiga calaamadda waa kana ninka meesha ku sawiran haddaad taabatid aykaasi toos ula xiriiraysaa su-aashaada iyo informationka aad rabtid aad weydiinaysaa marka waxaan rajeynayaa videoga xiga khayr iyo bashbash iyo barwaaqo waan salaamaya assalaamu calaykum